من هراي كفصدي وحما كسمين وحما كقلبصدي من لواد محا كلبصدي أدونك أيقو عقابتين لمنك أدونك ما يدك قطقا كاس انتاس نينك أيقو رفتي يعيجي داس صح انت بروسا ليغا قراعي مدح مانت رجا ليغا سوساري مدحا انت بروسا ليغا قراعي براقة إدشي سكوت الناتي كوت أنا تاكيس كوسرتي وحاجة كان يكانني وبنت إنها من مدة الشيء جسي عدكو كوسرتنا معها طيب كسنة وبنتك شيء جسي إسكتاي قال غرفته هو غرفته بيننا يتوالد كوسر الوسا عدكو كوسرت معها ماشان أو كاجت على قف كسوق يب باور بالكورنر غرفته باور أو دعابي إن الله وإنا إليه راجعون فهيمو waa gabar maskiin ah dulmane ah oo mar walba la dhaawaco fahimo waa gabadhii lagu jirdilay ama lagu dhaawacay Nairobi xanuunkeeda qof walba oo hooyo ah qof walba oo gabar ah oo damiir leh oo damqanaya qalbigiisa aan dareemi karo fahimo waxay sheegtay ugu dambeyn wararkii la isdhaafayay wararkii la isdhaxmarmarayay kadib fahimo way soo hadashay waxay sheegtay asbaabta loo dilay qaabka loo dilay dhibaatooyinka ku dhacay iyo waxyaabo kala badan fahimo waxay sheegtay in uu nin kubsi u geysan rabay ninkana ay taqaanay ninkana uu yahay nin oo wanaag badan walaaltinimo badan ixtiraam ka dhaxeeyay oo ninka damcay mar labaad inuu kubsado fahimo sida la wada og yahay markii ugu horeeyay waxay ahayd gabar Soomaaliya lagu dulmiyay oo dhibaatooyin badan loo geystay gabar hore loo dhaawacay gabar qalbigeeda hore loo jibiyay gabar hore mustaqbalkeeda loogu ciyaaray oo ninka ugu ciyaarayna ayadoo xaqeeda loogu dhicinin laga seexday oo hore loo dulmiyay qalbiga loogu dhaawacay fahimo xanuunkeeda waxa dareemi kara qof walba fahimo indhaheeda markay aragtid waxa ka dareemaysaa dhibaatooyin fara badan ee afka ka sheeganaynin inuu indhaheeda cadeynayo fahimo waxay sheegtay ninka hore u dhibaateeyay oo hore kufsiga foolxumada ah u geystay iyo ninka hadeer damcay oo Nairobi ku damcay inay ahaayeen laba nin oo saaxiibo ah waxay leedahay nimanka maxay iga rabaan maxay ii dulminayaan maxay aniga sidaan igu galayaan adduunka ma ugu tagaa fahimo nafsiyan way dhaawacan tahay nafsiyan waa qof u dhaawacan oo horay dhib iyo dhaawac badan loo geystay walahi waa wax laga xumaado waa wax qalbiga laga dareemo dad badan aa ka wada hadlayo fahimo dhibkeeda iyo xanuunka haysto laakiin Soomaalidu waxay dhahdaa meel hoo u baahan hadal waxba kama qaado qof heel u baahan war uu kaliya waxba uma taro fahimo heel u baahan tahay fahimo waxay heel ugu baahan tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumar gabdhaha Soomaaliyeed fahimo waxay sheegtay in ay gabdhaha hadii ay isku dhacaan xataa ay hadal isdhaafsadaan in ay ku caayaan ay dhahaan naagti yacni hoosteeda social media la wareejinayo soomatihi taasina waa xanuun kale gabar waxa loo baahnaa inay u damqadaan gabadha walaashood ah gabdhaha in waxyaabaha dhibaayo in ay ka ilaaliyaan ee qalbigeeda ilaaliyaan ee niyada u dejiyaan fahimo boqta soo gaartay dhibaatooyinka iyo dhaawac soo gaaray mid qodqoditaan iyo sheegid u baahan ma ahan mid in la soo xasuusiyo u baahan ma ahan waa mid in yacni la dareensiyo لأنهم إنه تهاي جبر ولا شيء هذا قلبي كله دجيو أو لبود دالو سيد دباتوين كإسهم مرتكو إلو بلهاد لكن هدي النقطة وحلو معاينايو وح يعني للي هاي نسدا ساعهاد هوست هذا وحلو ورجيناي سوشيال ميديا دباتة سو جاري حنون كيسة ودريميسا marka ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo gabadhan walaasheen ah fahimo ilaahay qalbiga ha u dejiyo ilaahay dhibkeeda ilaahay dheef ha ugu bedelo ilaahay ha u boogdayo wax kale aan dhihi karna ma lahan dadka ku dhiiranayo xumaanteeda iyo dhibaatadeeda ilaahay xaq ha tuso dhibka walaashaada soo gaaro waa macquul inuu adigana maalin maalimaha kamid ah uu ku gaari doono hadoo adigu ku soo gaarin inuu gabadhaada soo gaaro inuu walaashaada soo gaaro marka wax lagu tiigsado ma ahan xanuunka gabar walaashaa soo gaaray ma ahan wax yacni lagu digto nimanka gabadhan maskiinta ah mar walba in ay falxumo u geystaan in ay qubsadaan in ay dhibaateeyaan ku dhiiran
waxay u baahan yihiin in talaabo sharci laga qaado in sharci la tiigsado in laga dhiciyo ma ahan hadal oo kaliya ma ahan ila dhalanin iyo way ila dhalatay ma taagno haday gabar kula dhalatay gabadhan fahiimo ah way kula dhalatay hadii hooyo aad tahay oo gabar dhashay gabadhan fahiimo ah waa dhashay dib la'aan dhashay fahiimo waxay tiri gabar Soomaaliyeed ahay gabar qabiil ma ihi anigu waxa ahay gabar hiil u baahan hoona u baahan la inuu gabar kaligeed qurbo wareegayso dhibaatada iyo xanuunka hooyadeed ka soo dhaqaajiyay meeshaada ee taala qof jecel ma lahan inuu waalidkiisa ka soo dhaqaaqo ama waalid jecel inay gabadhiisa ka dhaqaaqdo laakiin daruufta markaas meesha jirto iyo dhibaatada meesha jirto meesheeda taalo ee ugu soo dhaqaaqday fahiimo waxay sheegtay inay dadka badan ku caayaan hooyadeeda dayacday guriga hooyadeed maxay u joogi weysay maxay kaligeeda Nairobi ka soo doontay qof walba bini aadan waxa ku dhacay qadarka Ilaahay iyo waxa qoran lama qiyaasi karo waxaan maanta fahiimo ku yimid inuu adiga biro kuba imaado macquul inuu walaasha ku yimaado macquul inuu gabadhaada ku yimaado macquul wiilashana wali rag ismaysan arkin haddii rag is arki lahaayeen kuma dhiiran lahayn gabadhan miskiinta ee xumaanteeda laakiin waxaan leeyahay Ilaahay xaqaha tuso waxa si kale oo toos ah u soo hadashay gabadhii la sheegay inay kamid ahayd gabdhihii garaacay fahiimo oo ayadana beeninayso fahiimo in kufsi la kufsan lahaa oo ninka damcay inuu kufsado iyo in ay ayada kamid ahayd dadkii dilay fahiimo iyo waxyaabo kala badan insha Allah fiidiyowga inaan ku dheeraado ma rabo wallahi waa xanuun waa murugo waa dhibaato waa calool xumo gabar Soomaaliyeed oo maskiin ah in yani sidaas mar walba xumaanteeda loogu dhiiro in mar walba la dhibaateeyo in mar walba xanuun ee qalbiga ka dareento muhiimada waxay ahayd fahiimo in la ilowsiyo xanuunka soo gaaray ma ahayn xanuunka soo gaaray mid fahiimo loo sii geysto oo fahiimo waxa leeyahay Ilaahay qalbiga ha kuu qaboojiyo Ilaahay dhibaatada ku soo gaartay Ilaahay ha kuu booqdayo insha Allah